dhalinyaradu waa hanti. Bismillaahi raxmaani raxiim. Dhalinyaradu waa hanti weyn uu dalkeena alla ku manaystay. Dhalinyaradu waxay leeyihiin tamar, xamaasad iyo firfircooni. sidoo kalena waxaa ku jira mashaacir ah inay ka muuqdaan mujtamaca tii Soomaalida ay dhihi jirtay meel ka maqnoow ama ka muuqo. laakiin maanta waxa ayaan dara ah inaan ku guuldareysanay inaan u jihayno tamartoodii iyo xamaasadoodii horumarka dalka, taasoo dhalinyarada badankoodii niyadjab ku ridaysa. tusaale ahaan waxaa jira shaqooyinkii dowladda baahidoodii ma dabooleyso. fursadaha shaqo badankoodiina waxaa qaato dadka xoogga siyaasadeed leh ama matalaadooda dowladda ay xooggan tahay. shirkadaha privatekana baahida shaqo la'aanta ma dabooli karto. shaqooyinka banaanaan badanaa waxaa lagu helaa graduation iyo saaxiibtinimo. sidoo kalena shirkadaha waxay eedeeyaan hay-adaha waxbarashada oo ay yiraahdaan xirfadahii ay u baahnaayeen sooma saaraan hay-adaha waxbarashada. hay-adaha waxbarashadana waxay leeyihiin shirkadaha nooma sheegaan, nalama wadaagaan xirfadaha ay raadinayaan, taasoo dhalinayso bii'ad oo ah laba bariday kala warla. marka waxaa muhiim ah in xal u helidda mashaakilaadka shaqo la'aanta inaan la imaano dadaal wadareed oo iska kaashanayaan dowladda, hay-adaha waxbarashada, shirkadaha, bunuugta, dhalinyarada iyo mujtamaca diyaasbarada iyo kulli iyo waalidiinta, macnaa si aan xal ugu helno arrinkan hadduu ilaahay yidhaahdo. dhalinyaradana ayagana waxaa laga rabaa inay fursado kala abuurtaan sida ganacsiga ama inay iskooda u shaqaystaan. waxaa la yidhaahdaa hadduu albaab kaa xirmo adigu albaab samayso. marka ganacsiga laftiisa ma aha mid loo dhasho, dhaba loo maro ayaa jiro. ganacsiga wuxuu u baahan yahay gunxirasho iyo gegsi badnaan. marka insha allahu tacaala waxaa nagu soo wajahan yani hirar oo ah ama hirar oo isbedelo aad u waaweyn oo ah sida qaaradda Afrika oo isku darsamaysa oo suuq xor samaysa. marka anaga waxaan gali doonaa tartan dhaqaale oo aad u xooggan. marka haddii aan anaga diyaar ahayn tartankaas waa ku guuldareysanaynaa. marka waa inaan isku diyaarinaa oo dhalinyaradeyna yani macnaa aan u diyaarinaa tartankaas dhaqaale si aan u noqono yani wadamada ugu muhiimsan dhaqaalaha Afrika insha allahu tacaala hadduu ilaahay yiraahdo. baaraka allahu fiikum. waa walaalkiin Baazi Busuri, TV-ga caalamiga Universal TV. daawasho wacan. jazaakum allahu khayran.